بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا وناكسن داوديال كسو دواده kanaalkeena Xad Official. وأنيقو أحد مان محا إسماعيل maanta waxayno martiya walaalkeen Idi Axmed Faarax. Intaanan Idi Axmed Faarax inoogu wareegsin mikrofoonka waxaan ka sii waramayaa waa abwaan hal abuur kamid ah hal abuurada daada yar ee uu soo koraya Soomaalida. Waxooga maansa ilaa dhowr maanso uu leeyahay maanta halkan nooga soo jeedi doona intaanu maansooyinka bilaabin isagan ku wareejinaya si isku keensan sharax. بسم الله. horta عبد المالك waad mahadsan tahay si wanaagsan aad soo dhaweysay sida qiimaha iyo qaayaha la sida fiican ugu soo dhaweysay kulay waxa la yiraahdaa haduu nin hadal yaqaan hadal kaaga horeeyo uu ka dhabqiyo waxba kaaga ma tago haduu kaaga dambeeyana waxa tiro dhan huf buu ka dhigaayo waxba kaaga ma hadaan wixii oo dhan aad tiri budul buu ka dhigaa marka kulay adigoo hadal yaqaan ay gaga horeeyay wax saasi badan oran maayo aniga magacayga miskiinka waa Idi Axmed Faarax waxaan kamid ahay hal abuurada ku dhashay dalka Soomaaliland waxaan maanta bartan ka soo jeedin doonaa dhowr maaso oo aan waliba jeclaan lahaa intaad adigu ku doorataan ama intaad ku jeclaataan in aan ugu soo jeediyo hadal soo si badan geli maayo waayo martina hadalkeedu uu yaryahay waxa yiraahdaan Soomaalida marti iyo moodba waa loo tariyaa marka marti iyo moodba loo tariyaa hadalka adan ku guureejinaya marka imanka Idi waxaan weydiin doonaa dhowr kamid ah maansooyinkiisa dhowrka kamid ah maaso wuxuu noo sheegi doonaa ciwaankooda halkaas inaguna ka dooran doono ilaa imka waxaan ka rabnaa ilaa 5 maansooyin noo sheego si aan uga doorno midka koobaad ee noo noqon doonta muqaddimada horta waa mahadsan tahay Cabdi Maaligow aan ku horeysiyay barta xagga amaantii xagga aan iska dhisaa hablahe aan ilaaho xural cayn maasada leeyahay ugu horeysiyo haday aan ku xigsiyo horta suugaanta Soomaalidu sideedaba waxa u badan tahay inay kaga sheekayso jacaylka iyo caashiqa iyo laba qof baas caashiqa iyo iswaayitaanka iyo dareemada aan gaadhayn erayada caadiga ah ee tiraabta ah sida daradeed aan ugu horeysiyay horta halkaas aan ilaaho gabayga xural cayn muuqlay wuxuu ku imanayaa gabadh aan galab casar aan aragnay aan intaas kaga dhaafay waxay ku xigsiin doonaa si ayna jacayl oo kaliya ugu milmin maasa la ilaaho waqtiyada adduunka oo ka sheekaynaysa sida laba qof isu bedeli karayaan yaani mid maanta laxad laha ayaa bari bilaa laxada mid maanta qof kale ku diganayay ayaa maanta sigi lagu diganaya aan taanaydi ku laado waqtiyada adduunka la yiraahdaa aniga ka fogaanayn ba jacaylka aan iyagana yiraahdo waan ku xigsiino maasa kale la yiraahdo falaadhaha ashiga aan xagga iyo calaalka iyaga u beeray waxa jirta maasa la yiraahdo duruufo ka kan haddaan ka sii socdaan xagga iyo calaalka soo socdo malaha waad garanaysaa calaalka anu iskaga badanaya waxa jirta iyaduna maansa kale iyaduna dareen cabiraysa oo la yiraahdo kalam qanaansho aan ku soo gabagabeeyo maasooyinka kala dooran doontaan wax lagu bilaabo quraanka ugu wanaagsan wax lagu dhameeyay quraan baa ugu wanaagsan maasa la yiraahdo quraanka ma sha Allah maasooyinka noo sheegtay in kasto aanay kala dhicin waxaan rabnaa in kasto inaan quraanka marka hore ku furfuran maansada ka hadlayso quraanka inay noogu furfurto oo inoogu xigsiiso maansada maalinta adduunka Soomaaliya sida iyo maansada saddexaad oo noqon doonta iyaduna falaadhaha cishqiga saddexda maansooyin aan akhridido waxaad ku keentay amba xilliga kugu dhalatay hadaad imka xasuusataa noo sheegtid maxamed walaal Cabdi Maaligow aan ku horeeyo horta maansada quraanka waxay dhalatay marmarka qaar markaad isweydiiso milcaamadaha quraanka lagu dhigo ee bulshada Soomaaliland leedahay maxay ardaydu ama waalidku ay ardayda uga saaraan badan ardayda markii 8aad meelaha gaadho quraanka maxaa loo nacaa looga baxaa si quraanku ma yahay wax laga weynaan karayo runtii waa su'aalo isweydiin mudan milcaamadaha iyo dugsiyada ardaydu waxay jecel yihiin dugsiyada waxay isweydiin mudan sababta u jeclaadeen haddaba aan ilaaha waxay ku dhalatay maansadani anigoo ku sii socda magaalada la yiraahdo Hobyo oo ku taala xagga ay koonfurta waxaanu safar baan ku jirnay marka maalmahaas aan reerka keenay waxaan soo arkay carruur yar quraanka waxay ku dadaalaysaa si ay uga weynaan lahayd yani iskuulka waxa lagu dadaalay si loogu weynaan lahaa milcaamadina waxa loogu dadaalay si looga weynaan lahaa dareenkaas anigoo qaba baan safar soo galnay safarka marka dhexda marayno ayay maasada inagu soo dhacday bal haddaba aan maasada bilaabo waxiiba yaana sii shaashayn aan bilaabayada sharxi doonta maasada waxa ku bilaabaysaa quraanka qalbiga ku dabiiba quraanka nafaaq qurqursiya
quluubtay dishootay macaasi qafaashay jidkii qaban weyday shaydaanu qoslaayo qur-aanku dabiiba yani qur-aankii inagu waxaynu ka dhiganay si aynu isugu dabiibi in ul iyo loox isla dhacno oo yani qur-aanka marka lagu dhigay ul iyo loox baa lagula dhacaya marka lagu dabiibayna ul iyo loox baa lagula dhacaya laakiin qur-aanku inuu taa ka macno weeyo uu yahay shifaa linnaas dawo dadka loo soo dejiyey ayaan markaa bartan ku sheegaya qowlka allaheenu run qeexani weeye xaqiiq qurxan weeye adduunka qalooday runtii la qisaasay beentii la quweeyey naftii la qalloocshay ibliis loo qushuucay wixii qaladeexday midkii qumin laana qur-aankani weeye yani waxaa jirta imika aqoonta qur-aanka ku duugan oo kale gaaladu marmar imika oo kale waxay ogaadaan 1400 oo sano kadib ayay ogaanayaan aqoonaha qur-aanka ku duugan yani qur-aanku 1400 oo sano ka hor wuxuu ka sheekeynayay diqsiga iyo hawlihiisa iyo markale wuxuu ka sheekeynayaa codka iyo inuu dhagaxaanta kala jebin karayo oo imika laga yaabo inay kamid yihiin cilmiyada adduunka imika lagaga faa'iideysto shuruuc qabanaysa insaan ku qancaayo quruumtani gaalo waxay qorqoraani tan nooma qiraane qur-aanka dastuurka dadkaa qabta weeye yani qur-aanka waa dastuurka ugu wanaagsan dadkaa qabta qur-aanka qur-aanku dadaala quluubta ku qaata ilaahay waa kii lahaa bal huwa aayaatun bayinaatun fii suduuri aladiina uutuu lcilma yani qur-aanka inaynu maaha kitaabada ku seenay inaynu laabaha ku qaadano intii kor ka qaybta falkiisana qaada yani inaynu kor ka qaybno keliya qur-aanka uma baahni lakin waxaan u baahnay inay ficiladiisana ay naga muuqdaan si fiican u qaada sharafta qarnigeenna raggaasi badh qaaday ragga qaybay ee ku dhaqmay raggaas sharaftii qarnigeenna badh iyagaa la tegay intii qorshahooda qur-aanka ku yaallo allow qumin doona qafaar naxariis leh inta aan weli iyagu qaybin aan weli ku dhaqmin ee qur-aanka yani uu ku dhaqmayaan laakiin aan weli si fiican u qaybin waxaan rajeynayaa inuu ilaahay soo hadeeyo iyagana qaybsiiyo inteenna qur-aanka qafladda kaga moogan eebbaa qurxin doona laabtooda quweyni shaydaanka ku qooqay qafladda ku ilaaway allaa ka qarsoomin qanaacana siin martanna waxaan ugu ducaynayaa dadka iyagu aan qur-aanka qaybsanayn aan dhegna u dhigayn qur-aanku dadaala quluubta ku naaxsha midigta ku quweeya cod qaada ku fiican qiirada la qushuuca qafaarka ka tuuga nafta u qanciyaaya inaanu qur-aanka quluubta ka saarin maasadaasi intaasay ku egtahay aada iyo aad ba wallahi maansadaasi aada bay qancisay aadna u macaan tahay insha allah dadka daawanaya waxaan uga rajeynayaa inay ku taamilo qaataan oo ay ilaahay ku hadeeyo intaad u sheegtay maansadii labaad inoogu xigtay oo ahaa maareynta nolosha maansada ku xigta waxaa la yidhaahaa horta nolosha sideedaba waxa caadiya nolosha ah inay sideeda isu badbedesho yani noloshu mar waa dayr mar waa jiilan yani nolosha sideeda isu badbedesha nolosha isbedelka ku dhisan dadka badankood ha necbaadeen laakiin isbedelku waxa kaliya nolosha ku dhisantay yani qofna ma jeclayno meeshiisa taagno laakiin isbedelkii baa laba qaybsamayo isbedel togan iyo isbedel toban isbedel si wanaagsan u dhacaya isbedel si khaldan u dhacaya yani qofba kor ahaa hoos buu soo noqonaya wuxuu doonaba kor ha ku ahaado maal ha ku kor ahaado cilmi ha ku kor ahaado wax kasta hadduu doona ha ku kor ahaado markaa si kastoy ahaato isbedelku noloshan aynu ku noolnahay ee adduunka ee aradka ka jirta waa wax sunnaayo isbedelku waa wax mar kasta u dhacaya marka aniga suugaanta adeegsanaya waxaan isku dayay inaan bal soo gudbiyo adduunku si isu weydaaranayo oo markaan leeyo kale kuma waarta noloshani meel keliya weligeed yani nolosha random wax meel keliya iska joogaya maaha waa wax movement ku jira yani waa physics la yidhaha malaha warxaa particleska ku jira dhaqaaq joogta laakiin nolosheeda laftigeeda dhaqaaq joogta ku jirta waxba yaanan idinku daalin arrintaa hore balaan bilaabo wuxuu odhanayaa waqtiyada adduunka ninba meel ku waabo isweheshi dhababa uu kala waacad xigiyo wejiyadiis eegtaa isweydaaran karoo kuma waarta noloshani meel keliya weligeed yani waqtiyada adduunku sidooda ha isu weydweydaarteen oo qofba meel ha ku waabo yani qofna qof kale nolol lama aha haddana dad isweheshaday oo dhab isu weheshaday ayaa kala waacad xigi karaya wejiyadiis eegtay yani labadii qof is jeclaa ayaa isweydaaran karaa markaa noloshanina kuma waarto meel keliya markaa waxay maasadu muuqaal ahaan u gudbinaysaa qof isagu ay noloshii gabtay oo qof kale kule anigana markaygaan heli doonaay waxba saa haygu sii dugan tan wuxuu leeyahay anna weerkaya xidhan walaahowgay la degan kuma waari doonay armu kugu wareega
yani wuxuu uga digayaa waa halkii nafsigii oo kaleo aniga waxaan haystaa armay adiga kugu soo wareegaan waayo isagana ilaahay baa u keenay kana ilaahay baa u keeni karaya kuma waari doonay armuu kugu wareega weeraha la jaartaa weydaa qofkuu naxa anna wehel haleela adigaagan aniga imika ugu diganayay le dugaag baad la jaartay iyo waxaasaad la jaartay ama adiga laftigaaga ku haleelaayo aduu dib ula jaartaa dugaaga oo weliba anigu qof in naxaan helay adigaaba i garaabay inaan nolol adag ku jiree adigu weydaa qofkuu naxabaad weydaa anna wehel haleelaa waqtigay samaadaa waa irada idabayiyo walwalkii daaya noloshayda weydaa waqti uu kabaayo waayuhu inaaxshaa nafta ii wanaajaa ana wuxuu ka sheekeynayaa aniguna waan ku bedeli doonaa adnadoodii bedeli doontaa noloshaan sidaan ku waarayne waxba kibirka iyo sansantaagga ha isku badin maasaasina intaas ku egtay baan filaya maasha allah tanna tii hore kama dhacdo walow aan isleeyahayba inay taniba ka eriye macaantii insha allah waxaan geli doonaa maalsadii saddexaad oo ahayd falaadhaha cishqiga taasna balno falaadhaha cishqigu waxay ku timi maalin aan boost facebooka soo dhigay ayaa nimaan saaxiibanimen masaajidka isku aragnay suugu uhi wallaahi waxaad ka sheekeynaysa jacaylku waa runoo anigaba beri buu coonta iga jarayo markuu kusoo qabanayo fallaadhu kala dhaay adigu sheeko noocaas iga sheekeeyey deetana annagoo masaajidka hortaagan baa waxay kusoo dhacday labada erey kala fallaadhaha cishqigu igu furay gantaallada tana markan gurigii baan maansada dhammaystiray bal waayahayn wada eegno wuxuu ku bilaabay fallaadhaha cishqigu igu furay gantaallada fiid iyo allayl subax fikirkayga kaadhiga igu firir kalgacalkii yani markii hore sahaalo haya imika wuxuu ka sheekeynayaa ninkani markasta adiganba kugu fikirayaa farxadayda kulligeed weedhaada faxan baa la dul siray falkiisaba yani waxaad arkaysaa qof suu u xidhxidhan saacad kadib baad u imanaysaa war maxaa ku dhacay war message baa soo dhacayo tana ninkan wuxuu ka sheekeynayaa wuxuu leeyahay farxadayda kulligeed marka wuxuu leeyahay ninkani farxadayda oo dhanba adiga weedhaadun bay saarantayba wuxuu kusii xigsiiyey sida farilaahay fariinteeda dhowree talow maabaan falanahay mise waa kalgacal fiday waxaan kuu fadilayaa yani sida fararka ilaahay shanta waqti loo tukado anana fariinteeda shanta waqti u dhowrayaa miyaan falanay talow isagii baa dib isaga shikiyey miyaan filanay talow mise waa kalgacal fiday waxaan kuu fadilayaa waxaan dad kale kaaga fadilayaa talow kalgacal baa mise waad fashayba boqolaal ka fool wacan barta wuxuu qirayaa inay jiraan iyada qaar ka qurux badan laakiin quruxdu maaha baan u malaynayaa jacaylka waxa dhaliye waa laba nafsoos ogolaatay baa jacaylka dhaliya tana boqolaal ka qurux badnaadaan haddana wuxuu leeyahay adigoo boqolaal ka qurux badan baa sida faralka ilaahay fariintaada u dhowraya boqolaal ka fool wacan qosolkeeda furan baa ka filroon xaggayga ma aragayga fiiqmaa filim ii sawirayo kama fiicna unkee fikirkayga weeyaan talow dadkaba kama wanaagsana malaha aniguunbay fikirkayga tagay dibnahaan fasixi jirin farxadaan aqoonay qosolkooda furi jirin noloshii u fiisho adigaa furnaaniyo farax iyo adduun baray yani noloshaanu markii hore macbuus yani wuxuu kasoo qaaday nin maxbuus ahaayo jabhadiinta usoo gashay furatay nasiibkayga wacad furay yani ninkan markii hore nasiibku mu ilaalin jirin ama nasiibka ballankamay dhexayn maalintoy kaa farag farax wii quudsho fiidkaasi oo qura iga furtay ducoon yiri waayihii kaa faray alla ilaahay fariid noqoy dadka badan waxaan aragtay ayagoo waayaha dhalaacanaya waayahaasa yeelay waayahaasan kala yeelay ninkan isagu waayihii ina taabaray waabuu mahad celiyeyba intaasay ku hegtay manfreda maasha allah waa gun iyo gunaanadkii barnaamijkan ku jirnaa walaalkay iid axmed faarax iyo anigoo barnaamijka ku mataan ahayn intaan tan iyo barnaamij kale ku kulmi doono waxaan kaga teginaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu